عليكم أصحابتا kusoo dhawaada shaxda maanta iyo Somali One Expert prediction waxa hadana tusi doonaa ciyaarihii aan shalay iyo dorada dheelay badan aniga ciyaaraha iskuma badiyo waxaan dheelaa ciyaar la hubo si aanan mataqaana khasaaro lagu hawla gelin lacagta isticmaalo waa Metcash adoo 70kii Metcash ayaa $1 u dhigma marka waa lacagihii aan sameeyay intaasi هذا أوجد بوشحذا مانتي أما عيارها مانتي أو خميس عيارها جري دونا بريمير ليج هذا تقنو واحد جرت عيار هذا وكريستال بالاس يو إفريتون ولا بنا ديو هذا هذا قيمة ولا بدنا هذه إسعار كودي يو يعني كلهم كودي كل مدة قدام بي وحوجد إني لبنا ديو حوها أيو في الفرعون وأنا سكوها اللي يمكن النادي بعدين كرأي النادي ما بدين كرأي إنه ده هذا في إنه إفتون سو مجد كل ما يقول مثل برايفورد بس هو قرأ على برايج قشي ليستر بيقرأ عليه تشيلسي بيقرأ عليه ليفربول بس هو قرأ عليه مانشستر يونايتد بهذا قرأ عليه وقيدين هذا أسوق إنه دن كان متقن أستون فيلا حق هذا كريستال بالاس أستون فيلا برايج لقشي واتفورد بي أيضا نفس كذا قرأ عليه marka markaskay ku jiraan ama meelaha kaga jiraan horyaalka 13 midna waxay ku jirtaa Everton 16 marka ma dhihi karno Crystal Palace ayaa badin karto iyada markaskeeda sareeya laakiin talada ugu fiican ee aan siin doono waxa weeye aan la wadaagi doono hadda khadka xawaayar culus talada ugu fiican aan siin doono waxa weeye inaad dhahdaan ama ka dhigtaan ama shaxda ku gashaan in labada teamba ay score gareyn doonaan ma garati halka waxa fiirin doonaa yaani shooting kooda inay dhexdooda waxyaabo badan laakiin waxyaabahaas uga baahnayna waqti iskaga lumisid waxa u gudageli doonaa shaxda waxa shaxda ka dhigan doonaa in labada naadi ay mataqaana gool dhalin doonaan taasaa fudud waxa laba naadi oo isweeraraya way isdagaalaya way marka ani saasa isticmaalaya waliba codka waa yareynaysa oo hal gool iyo xogaha ba ka dhigaysa ilaa 1.8 marka shaxdaas Crystal Palace iyo Everton taas ku soo galayna both teams will score taa ku soo gala waa talada ugu fiican qofkii dheeraya hadaa soo gudubno Aston Villa iyo Burnley waa laba naadi oo ayaga naftirkoodu hadda ka hor aniga Burnley way saarnaan jirtay oo ciyaar hore aan saartay way Aston Villa iyo Burnley labada naadi waa adag yihiin Aston Villa Gerrard baa wato ogtiin ciyaaraha dheelayso waa naadi adag Burnley naftirkeeda sidoo kale waxay ka cararaysaa inay hoos gasho marka labada naftirkooda ani waxaan kula talin lahaa Aston Villa badin karta waa ka dhigan kartaa in Aston Villa badiso waana ka dhigan kartaa both teams will score ciyaartana gool baa la iska dhalin doonaa laakiin ani ahaan waxa isticmaalaya in Aston Villa ayaan sameysanayaa ma garat Aston Villa taageeraya oo Aston Villa ku khamaaraya ma garat Chelsea iyo Leicester City waa ciyaar adag Chelsea iyo Leicester City waa ka baqayaan kulan aan ka baqayo way waa Leicester City naftirkeedu caadi ma aha kulamada ugu dambeeyay hadaan fiirno Chelsea xogaa waa ka taalay Leicester ciyaar ay xataa 5 ku badisay caadi ma aha marka ciyaarta marka fiirino labada naadi Chelsea waxay ku jirtaa 3 Leicester waxay ku jirtaa 9 kulamadii ugu dambeeyay Chelsea 3 badisay 2 badisay laakiin taa waxaas qiimo looma isticmaali karo ani waxa ahaan aan dheelayaa ciyaartan in labada mataqaana teamba gool dhalin doonaan waa Chelsea maalmaha waa laga badinayay Leicester naftirkeeda isku ma halayn karo marka saas oo gudbay waxyaabahan kale ciyaar naadiyashan kale aad uma aqaano lacag iskaga ma khasaarinayo ilaaha ma $1 ahaato tala fiican waxaan siinayaa ciyaar badan ma jiraan tala fiican waxaan siinayaa halkii mar waxa dheeraysa halkii maalin 3 game 2 game lacagtiina iskaga ciyaarana ciyaarahan hadaan tusayo waa ciyaar isbuucasta soo socda maalin kastana insha Allah waan la wadaagi doonaa shaxda saxda ah iyo talooyinka ugu haboon Somali One Expert team aad baan u mahadsantihiin iga raali ahaada hadaan wax